soo dhawaad saaxiibayaal muuqaalkiina maanta wuxuu ku saabsan yahay waad aragtaan cryptocurrency suuqiiba hoos u dhacay ilaa wuxuu soo taabtay wuxuu ahaa shalay oo kale wuxuu ahaa 730 halkan grid and fairku maanta weli yara fiican yahay oo ilaa hadda 40 marayo oo suuqu xoogay kor soo kacay balse weli suuqu wuxuu ku jiraa bearish oo yani weli hoos u dhacayo ku jiraa marka marmar way timaadaa hoos u dhaca suuqu mar walbana suuqu dee mid kor unu kacaya maahan waa in dadka aan kriptada soo gelin fursad siiyo dadku saa u soo galaan marka haddii suuqu si socon lahaa dadku yani maba maal gashan lahayn marka waxaan la wadaagayaa 3 qodob oo ugu waaweyn oo saameeya hoos u dhaca suuqa kripto yani waxaan aragnaa mar walba suuqa hoos u dhacaya marmar soo daadanaya marka maxaa keenaya waan isweydiino qofku yani markuu kriptada soo geliya ama doonayo wax ka ogaado waa inuu ogaado maxaa keeni kara hoos u dhaca kripto marka 3 qodob baan la wadaagayaa qodobkan koowaad waxa weeye dowladaha iyo sharciyada xeerarka dowladda iyo siyaasadda ku xeeran lacagaha loo yaqaano cryptocurrencies ayaa saameyn weyn ku leh habdhaqankooda suuqa marka ay dalalku soo saaraan sharciyo adag ama inay mamnuucaanba oo si toos mamnuucaan waxay ku abuurtaa hubanti la'aan iyo cabsi badan oo suuqa laga qabo marka suurtagalnimada shuruucda adag waxa ay niyad jabisaa maalgashadayaasha ayay maaragtay niyad jabisaa marka ay dalalku dul dhigaan sharciyo adag ama ay diidaanba isticmaalka kripto ama ay u keenaan inay wax dul dhigaan ya xeerar wax nooca dul dhigaan waxa ay taas inta badan hoos u dhigaysaa maalgashiga dadku ay maalgashanayaan kriptada maadaama aanay garan karinba suuqa halka uu socdo iyo weliba dee hubin la'aanta hubsimo la'aanta waxa dhici doona mustaqbalka dhow ama mustaqbalka dambe waxa dhici doona marka dowladuhu waxay ka qayb qaataan ama door weyn ka ciyaaraan saameynta suuqa waxaad aragtay wadamo badan oo hadda waqtigan jooga kusoo biiraya qaar baad aragtay weli aan waxba maalgashan ama aan kusoo biirin marka wadamada haddaba haddii ay sharciyo adag dul dhigaan waxay imanaysaa dadkeena ka cabsadaan inay maalgashan marka saameyn weyn bay ku leedahay waana waxyaaba qodobada go'aamiya ka mid tahay ugu waaweyn marka qodobkana labaad waxa weeye wararka iyo dareenka suuqa inta badan wararkuna waxay saameyn weyn ku leeyihiin kriptada suuqa cryptocurrency-ga waxaa si aad ah u dhaqaajiya wararka iyo dareenka wadajirka ah ee maalgashadayaasha taas oo saameyn xoog leh ku leh ama ku yeelan karta dhaqdhaqaaqa qiimaha cryptocurrency waxaa inta badan saameeya aragtida dadweynaha sheekooyinka xanta iyo weliba warbaahinta taasoo abuuri karta isbedelada suuqa marka haddii macnaha laga sheego suuqa inuu hoos u dhacayo ama dadku ay maaragtay laga sheekeeyo suuqa oo noqdo mid abuuraya welwel iyo cabsi waxaa dhacaysa inay hoos u dhaco suuqa totally inuu hoos u dhaco dadkuna aanay maalgashan taasna markaa waxay ku keenaysaa suuqu inuu hoos u dhaco marka si guud wararku saameyn weyn ayay ku leeyihiin tusaale ahaan ninka loo yaqaano Elon Musk inta badan waa dadka ugu waaweyn ee bahashan ku lug leh kriptada ku lug leh marka inta badan hadduu wax tweet gareeyo tweetkiisa ku soo qoro dadku inta badan way ku dhaqaaqaan waxaas ama negative ha noqdo ama positive ha noqdee haddii marka tusaale ay tahay mid taban oo saameyn negative ku leh suuqa dhanba hoos buu dhacayaa marka haddii ay ku timaado inuu maaragtay soo tweet gareeyo oo ka hadlo marka saameyn bay ku leedahay tan oo kale marka waa mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn qodobkiina saddexaad waxa weeye jibinta amniga iyo weliba scamska suuqyada cryptocurrency waxa ay si gaar ah ugu nugul yihiin jabsiga khiyaanada iyo weliba jibinta amniga sababtoo ah waa wax decentralizer oo baahsan weliba aan kormeer iyo weliba kormeer la'aantooda inta badan aanad wax ka kormeerayo oo ilaalinayo si gaar ah oo ilaalinaysan jirin markay dhacaan xadgudubyo ama scams waaweyn markay dhacaan ama khiyaamooyin ama kaliya ma keento khasaare maaliyadeed oo degdega laakiin sidoo kale waxa ay dhaawacaan kalsoonida suuqa oo dhan tusaale ahaan marka la hagareeyo exchange marka la hagareeyo sanadka 2020kii waxaa la hagareeyay exchange loo yaqaano KuCoin taas marka dambe waxa ay ku hogaamisay dee hoos u dhac weyn oo dhaqaale
ayay keentay. Marka shilalkani inta badan waxa ay saameyn weyn ku leeyihiin suuqa, kuwaas oo ka qayb qaata cabsida iyo weliba hubinti la'aanta iyo weliba inuu shaki la geliyo oo dadku ay maalgashan waayaan. Marka sababahan ayaa keena suuqu inuu hoos u dhaco. Saddexdaa qodob ayaa ugu waaweyn waxyaabaha keena suuqa inuu hoos u dhaco. Midna ogsoono taa beddelkeedana saddexdan haddii ay iman waayaan, tusaale haddii iminka hakis iyo waxyaabahaas ay yaraadaan ama la arki waayo, suuqa waa lagu yaacay, waa la maalgashanaya. Haddii wararka mar walba ay fiicnaadaan, warar togan ay noqdaan oo fiican oo wax fiican laga sheegayo, suuqa kor ayuu kacayaa. Haddii dowladuhu sharciyo fiican u soo saaraan oo wanaagsan oo macquul ah, dadku way sii jeclaanayaan. Marka vice versa-ka macnaha intaan soo sheegnay haddii ay dhinaca kale laga eegana waa mid togan oo fiican. Marka